السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعن ونكسن أخيرا ميل والبوء جوجتان. waxa macquul ah inta badan inaan maqashid oraah ah dadka dhiirigeliyaasha inta badan ay isticmaalaan muruqmaalka iyo maskaxmaalka comparison lagu sameeyo barbardhig inta ugu badan anaga Soomaali ahaan awalkii intaan gumeystaha noo imaanin ka hor waxaan u ahayn xoolaaleey kadib markii gumeystaha uu naga tagayna waxbarashada aad bay u liidatay Maxamed Siyaad Bare Allah u naxariistay iskuul iyo waxbarasho in la dhiirigeliyo ayuu ku dadaali jiray dadka waxbartay inta ugu badan waxay ku dadaalaan maskax maalimo in maskaxdooda ka shaqeysiyaan ee intifaacaan maskaxdooda muhiimada ay siiyaan shaqadooda ugu badan ay geliyaan maskaxdooda waxay ay ka keenaan halka anaga inta ugu badan maadaama xoolaaleey aan ahayn maskaxda ugu badan ee waqtiga ugu badan aan gelino muruqmaalnimada qaabka muruqayna ugu shaqeysan lahayn qaabkan 24 saac u shaqeyn lahayn qaabkan 12 saac shaqo ugu jiri lahayn muruqa muhiimada siinaa maadaama xoolo aan ka imaanay aqoon meesha way ka baxday muruqu halka dawladaha kale ama dadka wax bartay space kale uu jiro marka xoolo laga yimid waxbarasho la yimid ka bacdi maskaxda muhiimada si farqi weyn u dhaxeeyo qofka maskaxda ku shaqeeya iyo qofka muruqa ku shaqeeya qofka muruqa ku shaqeeya wuxuu 10 sano ku shaqeeyo ama 20 sano ku shaqeeyo qofka maskax maalka ah muddo ka gaaban ayuu ku keenaa wadadaasna wadda ka gaaban ayuu u maraa مثال جابنا ربا إنه خوصة بني بوك أنا خلناي أن كأركي مركب وين باوح ليري وعلده علد مركتمي تذكر مركب كالها تذكر كشقينا مركب كدول صارنا وحين مهمة دسيان إنه هلان قف مركب كا محلي هذا موتور كيسة كشقيسية فيريا علد بحية وقال ذي دحوريجين وحيسوه هلان ميكانيكا ميكانيك تربى ضم بياركين لكن نبي مهمة كواد سيان وآه inuu xalin karo ay u arkeen ninkii markuu yimid markabkii motorkiisa kor iyo hoos buu wada fiiriyay uu wada baaray oo indheeyay scan u saaray motorkooda waxa uu soo baxday cilad ah in uu hagaajin karo ciladan burus yar buu meel kala soo baxay baagiisa uu jiray buruskii buu meel kaga dhuftay markabkii aqoodihiisa iyo milkiilaha la socda way arkaan ninkan motorka baarayo dhan walba ka fiiriyay ayaga inkastoo awal ay ku qanceen qaabka uu baarayay kadib waxa uu soo baxday ninka inuu cilad bixin karo motorkii wuxuu meel buu ka gargaraacay burusku wato oo yaraa buu meel kaga gargaraacay motorkii uu daarmay motorku markuu daarmay kadib isbuuc uu warqad u qoray wuxuu ku yiri receiptka lacagtiisa la ka rabaa $10,000 aan ku soo sheegay ninkii markabka lahaa ninkii aqoodaha ahaa way la yaabeen inuu ninka wax buura muusa sameeynin burus yar buu meel kaga dhuftay maxay ahayd $10,000 bay isweydiiyeen laakiin ninka odayga ah makaaniga ah maskax maal buu ahaa muruq maal muusan ahayn wuxuu yiri rasiid ahaan hadaa idin kugu sharxo waxa aan qabtay exactly bitafaasiil hadaa idin kugu sharxo buruska ameesha kaga dhuftay $1 buu ahaa wiirnay oo wax ay ayaga ku qanci karaan laakiin wuxuu yiri 9,999 shilin $9,999 senti waxa weeyaan uu yiri halka exactly uu ka ciladeysnaa waa shahiid weeyaan oo maskax maalnimada muruq maalnimadu wuxuu siiyay $1 inta kale tan wuxuu siiyay $9,900 wuxuu siiyay maskax maalnimada ayuu siiyay marka maskax maalnimada waa shay ka muhiimsan 1000 marra muruq maalnimada ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi ilaahi aadam alayhi salaam markuu abuuray malaa'ikta waxyaabahu u sheegay waxa kamid ah markay malaa'ikta yiraahdeen in aadin dhulka dhiig maxalira ku daadin doona waxad u abuuraysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiiyeen ilaahay wuxuu ku yiri waxaan ogahay waxaan ogahay bina aadankan waxaydan ka ogeen baan aniga ka ogaa ilaahay subhanahu wa ta'ala malaa'iktu waxyaabuhu ugu faanay waxa kamid ahaa in ibn aadanku uu siiyay maskax aqoon imtixaanka la geliya aadam iyo malaa'ikta waxa muhiim u ahaa bal u fiirso aqoona muhiimada la siiyay maskax maalnimada muhiimada la siiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay suuratul baqara
aadamow u sheeg malaa'igta anbi'uhum biasmaa'ihim magacyadooda u sheeg waxyaabahan qaadistooda xambaaristooda meel dhigistooda tartan laguma gelin laakiin aqoona tartan meel lagu gelin malaa'igta anbi'uhum biasmaa'ihim u sheega liir magacyada walxaha jannada yaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala in aadinka wuxuu ugu faanay malaa'igta maskaxdaada ka shaqaysay si heer u gaartay adduunyada idil maskaxay ku ururto annagana aadam ilmihiisaan nahay waa inaan maskaxdaasaan ugu faa'iidaysan lahayn muhiimad weyn aan siinaa maskaxdeena aan ka shaqaysiinaa haddaad u baahan tahay dhaqaalo haddaad u baahan tahay wax walboo dunida ku saabsan ama nolol maalmeedkaaga ku saabsan oo idil waxay u baahan yihiin maskaxay u baahan yihiin dhaqaalaha ugu horeeya maadaama kanaalkeena aan ku sharaxno dhaqaalaha waxaa sal u ah ma aha in 24 saac shaqaysid ma aha in 12 saac shaqaysid ma aha shaqo adag inaad ka shaqaysid adeegada ka shaqaysid ama shaqo kaleeto aad ka adag ka shaqaysid kaliya waxa u baahan tahay maskaxdaada inaad fadhiisatid aad ka shaqaysiisid wadada ugu gaaban aad u maray lahayd aad ka shaqaysid